kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo ka mid noqday madaxda lagu cazumay furitaanka koobka adduunka ee Qatar dhammaan madaxweynayaasha Islaamka ah iyo kuwa Carbeed oo goobjoog ka ahaa xafladii furitaanka koobka adduunka madaxweyne Xasan Sheekh oo loo diiday inuu ka qayb galo iyo dhacdooyin la yaab leh oo laga diiwaan geliyay dalka Qatar qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka daawateen oo dhameystiran Al-Ihsan online Qur'an waxa waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibadda ku wargelinaya inuu idin diyaariyay qayb online wax loogu barayo carruurta Soomaaliyeed iyo dadka waaweyn dugsiga waxa kugu diyaara macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo dhamaantood u diyaarsan waxbarista ubadka Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka joogaan Al-Ihsan online Qur'an waxay ubadka barayaan insha Allah barashada xifdinta iyo tafsiirka Qur'aan Kariimka barashada higaada Carabiga muddo kooban barashada ducooyinka iyo sirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barbaarinta iyo tarbiyinta ubadka yar Al-Ihsan online Qur'an waxa kale ardayda baraysa qoraalka iyo akhriska afkeena hooyo ee Soomaaliga hadda wixii sidaar kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda aynu ku horeyne madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqday madaxda lagu cazumay furitaanka koobka adduunka ee ka dhacaya wadanka Qatar madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid noqday madax sharafeed caalamka socday oo lagu marti qaaday furitaanka koobka adduunka ee World Cup ee sanadkan ka dhacaya wadanka Qatar Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan wadanka Turkiga ayaa diyaarad gaar ah ka qaaday Istanbul iyadoo ay geysay dalka Qatar gaar ahaan Dooxa halkaas oo uu qayb galayo furitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka oo sanadkan lagu martigelinayo wadanka Qatar Farmaajo ayaa waxa soo dalbaday inta badan dalalka caalamka gaar ahaan kuwa Islaamka oo ugu horeeya Erdogan iyo madaxweynayaal kale oo sheegay in muhiim ay tahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qayb ka noqdo furitaanka koobkaasi oo Soomaaliya ku matalayo arintan ayaa bahdilaad weyn ku ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa maamulka ee Damul Jadiid maadaama ilaa iminka looga saameyn badan yahay siyaasadda arrimaha dibadda oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli saameyntiisa caalamka ay taagan tahay qadarin xushmad iyo tixgelin weyn ay u hayaan hogaamiyaasha dalalka caalamka dhinaca kale dhammaan madaxweynayaasha Islaamka ah iyo kuwa Carbeed ayaa goobjoog ka ahaa xafladii furitaanka ee koobka adduunka waxayna u muuqataa in tan ay tahay mid lagu muujinayo awoodda Islaamka iyo in wadan Carbeed oo muslim ah lagu martigelinayo koobka sanadkan tani oo xamaasad kale u yeelaysa ciyaaraha World Cup ee ka soconaya gudaha wadankaasi Qatar madaxda dalalka Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka, Kuwait, Masar iyo dalal kale ayaa joogay xafladda waxaana sidoo kale lagu cazumay madaxweyne Farmaajo oo saaxiib dhow la ah dalka Qatar gaar ahaan amiirka wadankaasi hogaamiya dalka Qatar wuxuuna Farmaajo qayb ka noqonayaa madaxda caalamka ee sanadkan qaybta weyn ka qaadanaya koobka adduunka ee World Cup ee ka dhacaya gudaha wadanka Qatar Erdogan iyo Farmaajo ayaa diyaarad gaar ah ka soo wada raacay Istanbul iyagoo ka wada degay mar qura wadanka Qatar tani oo ku muujinaysa in dowladda Qatar ay sanadkan daneynayso in madaxda caalamka iyo dowladaha Islaamka ay si weyn u muujiyaan dareenkooda ku aadan caalamka ee reer galbeedka in diinteena Islaamka aysan ahayn diin argagixiso balse tahay diin amni iyo nabadgelyo isla markaana hadda taariikho iyo sidoo kale arrimo fajac ay ka dhaceen dalka Qatar tan iyo markii halkaas ka degeen xulalka iyo taageerayaasha ka qayb galaya sanadkan dhacdada World Cup ee ka dhacaysa gudaha wadanka Qatar Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu noqonayaa madaxweyne nasiib badan isla markaana weli taageero fara badan ku leh caalamka oo xitaa madaxda caalamka ay cazumayaan isagoo aan hayn xitaa xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya xafladda furitaanka ayuuna ka soo muuqday Farmaajo iyo madaxweynayaal kale oo caalamka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in loo diiday inuu ka qayb galo dhacdada koobka adduunka ee laga furay dalka Qatar waxaa la sheegay in toddobaadkan bilowgiisa uu codsi u diray amiirka wadanka Qatar oo la xiriirta in madaxweynaha Soomaaliya loo ogolaado in uu yimaado dalka Qatar si uu qayb galo
xafladda furitaanka ee World Cup 2022 balse Qatar ayaa sheegtay in hal shaqsi Soomaaliya ka casuumeen kaasina uu noqday Farmaajo Xasan Sheekhna dib loogu soo celiyay codsigii istiqaaladii uu weydiisay Qatar si wadankeeda uu soo booqdo. bahdilaad weyn ayaa loo geysay kooxda maamulka ee Damuuljideed waxayna markan u muuqataa in isbedel weyn uu ku imaanayo xaaladda siyaasadda ee dibadda Soomaaliya marka loo fiiriyo ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan Qatar iyo Soomaaliya tan iyo markii meeshu ka baxay Farmaajo Xasan Sheekh kooxdiisana ee fiilada ku xirteen dowladda Imaaraadka oo xifaalta weyn uu kala dhaxeeyo dalkaasi Qatar. ugu dambeyntiina haddii aan eegno dhacdooyin la yaab leh ayaa laga diiwaan geliyay dalka Qatar sanadkan oo martigelinaya koobka adduunka. magaalada Dooxa ee caasimadda wadanka Qatar waxaa soo baxayay sanadkan 2022 muuqaalo xiiso leh oo isugu jira garoomo, wadooyin iyo dhismooyin qurux badan. tan iyo markii dalka Qatar ay ku guuleysteen martigelinta koobka kubadda cagta adduunka waxaa soo tarayay muuqaalada xiisaha leh ee ka imaanaya dalkan yar ee Qatar. qarni ka hor 1922 dalkan yar ee Khaliijka oo ay ku nool yihiin 3 milyan isla markaana dhulka uu ku fadhiyo uu dhan yahay 12,000 oo kiiloomitir square oo laba jibaaran waxa uu ahaa dhul lama degaana. waxaa dalka Qatar dadka ku nool ay ahaayeen kalluumaysato iyo reer guuraah ka yimid saxaraha fog ee badda Carabta. dad yar oo daadooda ay 90 jir tahay ayaa maanta xasuusan kara duruufihii dhaqaale adka ay ku noolaayeen 1930 ilaa 1940 waxaana dadka dalka Qatar ay shaqo raadsan jireen meelo kala gedisan ee caalamka sida wadanka Japan. qarnigaas Qatar waxay lumisay ilaa 60% dadkeedii ka tagay si ay fursado dibadda u raadsadaan. 10 sano kadib 1950 waxay lahayd dad aan ka badnayn 24,000 sida ay sheegtay qaramada midoobay. hadda Qatar waxay leedahay dhismayaal dhaadheer iyo kuwa waaweyn oo aad u qurux badan, jasiirado macmal ah iyo garoomo kubadda cagta oo casri ah. haddaba waxaan halkan idinkula wadaagaynaa oo aan fanqeynaynaa 3 isbedel oo ka dhacay gudaha wadankaasi Qatar. helitaanka shidaalka. Qatar markii ay heshay dahabkeeda madow shidaalka weli ma noqon qaran madax bannaan waxayna ku jirtay gacanta Ingiriiska oo qabsaday dhulkaasi 1916. waxay Qatar jasiiradaas ay soo jiidatay warshadaha halka maalgashadayaasha ay bilaabeen inay yimaadaan Qatar waana mid ka mid ah fursadaha dhaqaale ee wadankaas soo maray. helitaanka gaaska dabiiciga ah. intii lagu guda jiray sahanka 1970 injineeradu waxa ay heleen kayd gaas oo ku yaalay dhanka waqooyi ee xeebta Qatar. shirkadda Qatar Gas oo soo saarta gaaska dabiiciga ah ee adduunka ayaa ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee gacanta ka geystay kobaca dhaqaalaha ee wadanka Qatar. kacaankii 1995 ka dhacay boqortooyada wadankaasi. kobaca dhaqaale ee Qatar wuxuu kor u kacay bilowgii qarnigii 21aad intii u dhaceysay 2003 ilaa 2004. wax soo saarka guud ee gudaha wadankaas wuxuu sare u kacay 3.7% ilaa 19.2%. 2 sano kadib 2006 dhaqaale wuxuu kordhay 26.2%. taas ayna ka dhigtay Qatar inay noqoto mid ka mid ah wadamada ugu qanisan caalamka. guud ahaan saaxiibayaal wanageynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.